saaka halkan waxay noo furay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska anigana waxa maanta la yaasangirey inaan halkan idin soo xiro aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo uu wakiil ka yahay agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha oo isagu si rasmi ah uga shaqeynayay tababarkan shaqaalaha leedika doonay oo 200 oo shaqaalaha oo wax yar dhimanaha waxaan agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha iyo agaasimaha guud uga mahadcelinayaa in maanta intani tahay intii gabagabadahayd ay ku soo xirmaysay tababarkiinu wax shaqaalo oo ku hadhay oo wasaaradda u hadhayo aan isleenahay tababar dambe u baahan yihiin ma jiraan dadaalkaana wasaaraddu way muujisay markii aanu agaasimaha guud iyo agaasimaha cududa shaqaalaha wada hadalay la eegay shaqada aad haysaan baaxadeeda iyo culeyskeeda wasaaradda ganacsiga oo wasaaradda maaliyadda shaqada kala mid ah intii xafiiska ku soo hadhay inaan haddana xaruntii geeyno tababarna aad bay u adkaatay marka codsigii wasaaradda waanu ka aqbalay waxaan ku nidhi anaga idin imanayna noo diyaariyo shaqaalihii waxaan aad idinku ammaanayaa madaxdii wasaaradda agaasimaha waxeedada iyo la taliyayaasha balaha ee aqoontii wasaaradda ahayd inaad maanta halkan ku fadhiyeen in la idin soo koobo hal maalin laga dhigan waxa keensanaysa culayska iyo baaxadda shaqada wasaaradda ganacsiga dalxiisku ay hayso si gaar ah waxaan u hambalyeynaya hablaha iyaguna sharafta badan leh ee ka soo qayb galay iyaguna tababarkan inta madaxda agaasimaha waxeedii inta ku xigeenay inta madax qaybeedaba si gaar ah abnu kulliga ka samir badiyay dadkan iyagana aan ugu ammaanayaa bahdaydii weeyaan iyagana si gaar ah ayaan u salaamayaa waxaan aad iyo aad u jecelahay in duruusta halka aynu ka qaadanay inaynu ku camal falno maadaama aynu nahay shaqaale dawladeed laga soo bilaabo agaasimayaasha guud ilaa qofka ugu hooseeya wasaaradda dhammaan shaqaale dawladeed baynu nahay amarka aynu fulinaynaa lambar 1 waa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uga mahadcelinayno inuu sanadkan gartay in dastuurka tababarka dastuurka iyo wadaniyada la siiyo dhammaan shaqaalaha dawladda oo ku dhow 5,000 iyo dheeraad shaqaale ah booliska ay wasaaradda xilka golayaasha arrimaha dastuurka dhabarka u ridato idinkuna aad tihiin dadkii nala fududeeyay maadaama aad diyaar u noqoteen in ujeedada guud ee wasaaraddu lahayd iyo amarka madaxweynaha nala fulisaan nala dhageysataan nala qaybisaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waxa kale halkan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska oo isaguna shaqo qaran ku maqan oo la ii sheegay awdal ku maqan yahay agaasimihii guud isaguna fasax idinkaga jira iyo kusimaha agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha agaasimayaasha kale iyo inta ka soo qayb gashay dhamaantii waxay noo ballanaa inay nabadgelyadooda ilaalino dastuurka sharciga uu sareeyo dalka ilaalino xuquuqdeena aynu ka eegno markaynu doono xuquuqdeena raadino in dastuurku inoo ogol yahay in kale shuruucda dalka inaynu ilaalino waxay ku xiran tahay inaynu baranno qofku waxaanu aqooni waa u cadow agaasimaha inoo sheegay annaas waa acdaa u lima jahilu baalid qof kasta wuxuu cadow yahay wuxuuna garanay cadaawaduna ma aha cadaawad kale laakiin wixii aanu qofku garanay wax kasto ay imika wadankeena la keeno mobilka hadii la keeno instruction baa la soo raaciyaa dawa hadii la keeno warqad yar leaflet la socoto waxaas waxa looga jeedaa inaan qofka waxba ka qaldamin Soomaaliland waligeeda markaynu ku noolaasayna waxba inooga qaldamin waa inaan dastuurkeena ilaashano macallin kayaga qaaliga ama gareeqaanka qaaliga ee intaas oo shaqaale oo dawladda la tababaray kala qayb qaatay maantana nasiibka aad u hesheen sulcayn aad iyo aad baan isaga ugu mahadcelinayaa agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha waxa leeyahay wasaaraddan aad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama waa shakhsiga gacanta ku hayay ee maalin walba aan la soo hadlayna lahayn shaqaalaha intaas dhiman inta keen waajibkaaga wad ka soo baxday jazaakallahu khayr waxaan leenahay dhamaantiin Soomaaliland oo nabada Soomaaliland way nagu filan tahay ilaahay ina garansiiyo Soomaaliland oo barwaaqo Soomaaliland inteena iyo inta kaleba ay xilka waa la iska dib sugayaa waxa weeyaan qof walba maalin buu xilka imanaya laakiin waxa lagu gaarayaa in nabadgelyada la ilaaliyo kala dambeynta la ilaaliyo madaxda laga dambeeyo saacadaha shaqada la buuxiyo ilaahay inta garato waxa inaga dhigo ka wasaaradahan dhamaantiin waan idin mahadcelinaa shirkuna inoo xiran yahay hablahana salaan gaar oo kaliya laaba ayaan kaga sii tagaya aad baan u jecelahay aad iyo aad baan u mahadsantahay